موضوعان waxaan ku dul istaagi doonaa calaamadaha lagu garto qaab ahaan baaritaanada la sameeyni karo iyo daawooyinka ku haboon marka ay jirto marxaladda loo yaqaano oligospermia ama low sperm count in dhalinyarada ama ragga lagu arko shahwaadkooda ama ugaxantooda inay ka yar tahay levelkii loogu talagalay ama xisaabtii loogu talagalay taasoo ah 15 milyan wixii ka yar in lagu arko waxa loo yaqaano oligospermia soo dhawaada saaxiibayaal inta aanan mowduuca guda galin marka hore like-ta follow-ga subscribe-ka channel-skayga Facebook-ga YouTube-ka inaan leega baqirin lana hilmaamin sidoo kale wixii su'aal iyo talo waad soo weydiin kartaa waxaadna igala soo xiriiri kartaa address-kayga adigoo aad ka heli kartid YouTube description-ka iyo Facebook page-ka waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin wanaag iyo sharaf iyo caafimaad oligospermia marka ragga ay ku dhacdo waxa soo in qofka hami badan uusan haynin marka koowaad sidoo kale in xubintiisa taranka aysan firfircooneen dareen fiican uusan ku jirin sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa in shahwaadkiisa ay daciifeen uu dareemayo in aad ay u yirihiin wax yar oo biyo ay ka imaanayaan sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa dhanka iyo muruqaha timaha inay aad ayaguna u sii dhamaanayaan difaaciisa jir inuu arkayo marba marka ka dambayso inuu sii liidanayo sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa stress badan inuu kaga furan yahay maskaxda walwal badan inuu jiro culays badan uu saaran yahay sidoo kale wuxuu kaloo isku arkaa hurdadiisa inay sii yaraatay dhammaan marka la isku soo wada duubo calaamadaas waxay ka tarjumayaan in marxaladda oligospermia ama shahwaadkiisa inay daciif yihiin marka laga hadlay inuu baaritaano uu sameeyo qofka waxa ugu horeeya inuu qaado infectionsku ku dhaco qaybaha kala duwan ee taranka gaar ahaan xiniyaha xubnaha taranka kaadi haysta infectionsku ku dhici karo sidoo kale dhanka iyo tubooyinka shahwaadka infectionsku ku dhici karo gaar ahaan cudurka loo yaqaano epididymitis sidoo kale inuu qofka iska baaro xubnaha taranka cudurrada lagu kala qaado dhanka iyo galmada cuduradaas oo ay ka mid yihiin chlamydia iyo gonorrhea dhammaan waxyaabahaas in baaritaanada ugu horeeya uu sameynayo inay ka mid noqdaan marka labaad waa inuu sameeyaa in xubnaha taranka gaar ahaan xiniyaha inuu saaraa computer si loo ogaado inay daciif ay yihiin heerkii laga rabay unugyada xiniyaha qaab ahaan awood ahaan inay shaqeynayaan fiican yihiin iyo in lagu arkay in tubooyinka qayb ka mid ah inay xiran yihiin sida guud marka ay noqotay in qofka laga daaweeyo oligosperm waxaa muhiim ah in laga qaado hormoneska kala duwan si loo ogaado hormone balance-ga inuu caadi u yahay ama qayb ahaan inay yar yihiin waxaan ugu horeeya testosterone-ka kaasoo ah hormoonka ama dhacaanka saacida xubnaha taranka kana sameysanta shahwada sidoo kale kuwa caawiyo testosterone-ka loo yaqaano FSH-ka iyo LH-ka dhammaan marka laga soo gudbo kuwaas wuxuu kale uu sameyn karaa qofka in baaritaanada uu ku daro spermaha in shahwaadka uu baaro waxay ka dhigan tahay in la ogaado heerka ay tahay qaab ahaan motility-geeda socodka qaab ahaan sida u sameysan tahay sidoo kale awood ahaan iyo inta tiro ahaan ay tahay marka ay noqoto in qofka isbedel uu la yimaado dhanka iyo marka ay jirto cudurka loo yaqaano oligospermia waxaa muhiim ah inuu sameeyo almento ama gym ama exercise in ku siman maalinkii 2 saacadood inuu orod uu galo ama jimicsi uu sameeyo si muruqihiisa ay u soo galaan oxygen aad u fiican iyo in xubnaha taranka ay u gudbaan dhiig iyo nutrients ku filan sidoo kale qofka inuu qaato cunooyinka nafaqada soo celiya jirka awoodda jir difaac ahaan kor u qaada waxaana ugu horeeya noocyada kala duwan ee qudaarta sidoo kale waa inuu isticmaalaa ukunta looska iyo avokaadada iyo qaybaha kala duwan ee kheyraadka laga helo badda waxay awood badan ay geliyaan korna ay u soo qaadaan spermaha ama shahwaadka markay sameysmayaan sidoo kale waxay kale awood ay geliyaan hab difaaca jirka iyo in qofka fitamiinaadkiisa awoodiisa jir ahaan ee kor u soo kacdo marka ay noqoto qofka muxuu isticmaali karaa waxyaabaha supplementary-ga in jirkiisa uu isbedel uu geliyo qudaar fiicanna uu helo waxaa kaloo u xigto inuu qaato maadooyinka ama fitamiinaadka difaaca jirka kor u qaadayo waxaana ugu horeeya maadada loo yaqaano zinc waxay ka qayb qaadataa in testosterone-ka aad u soo dhasho hormoonka raganimada sidoo kale in uu jirka difaac ahaan muruqahiisa awoodiisa dhiigga inay kor u kacdo kana qayb qaadata wixii infection ah inuu ka yaraado jirka zinc qofka kama maarmo haddii lagu sheego oligospermia
waa inuu isticmaalaa. waxay ka qayb qaadanaysaa in normal ay kasoo dhigto kuna soo celiso spermihii intii laga rabay. sidoo kale maadooyinka uu qaadanayo qofka waxaa ka mid ah maadada loo yaqaano ama amino acidka loo yaqaano diaspartic acid DAA. waxay maadadan awood badan u leedahay dhanka iyo xiniyaha borotiinada sameeya, sidoo kale unugyada xiniyaha ka qayb qaatay inay soo daayaan spermaha ama testosteronka, inay kor u qaadaan shaqeyntooda, awoodooda, waxayna suurtagelinayaan in spermaha levelkiisa uu sare maro. aspartic acid qofka wuxuu isticmaali karaa maalinkii hal xabo. waxay si aayar kor u qaadaysaa awoodii taranka, soo dhalashadii spermaha, iyo awood ahaan hami ahaan qofka inuu u lahaado dhanka iyo sariirta. sidoo kale dhalinyarada ama ragga marka ay oligospermiga ee dhacdo waxaa muhiim ah inay isticmaalaan maadada loo yaqaano vitamin C. vitamin C waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qabato ama ay aada ugu saacido dhanka iyo taranka waxaa ka mid ah in qofka ay u sameyso habdifaaciisa, tubooyinka shahwaadka ee ku kaydsamaan inuu kor u bato. sidoo kale in shahwo badan ay soo gasho tubooyinka loo yaqaano epidemiska. sidoo kale vitamin C wuxuu xooga uu saaraa in qofka uu ka ilaaliyo infectionska inay kusii daahaan qeybaha kala duwan ee taranka, tubooyinka shahwada lagu keediyo, tubada ay soo marto xiniyaha gudihiisa. qofka markuu isticmaalo waxaa la arkaa isbedel inay ku dhacdo dhanka iyo shahwaadkiisa, tira ahaan ay kor u soo kacdo. vitamin C lagama maarmo, mar walbana waa inaad isticmaashaa haddaad tahay dhalinyaro ama ragga da-doodu ee aada ku sareyso. sidoo kale waxaa kaloo muhiim ah inuu qofka isticmaalo maadooyinka ama vitaminka loo yaqaano vitamin D. waxa uu ka saacidaa vitamin D in calcium badan lasoo daayo jirka, sidoo kale awoodda jir ay difaac ahaan in kor loo qaado, qofka muruqihiisa awood ahaan inay sare maraan, oxygen badanna uu gudbo murqaha iyo unugyada ay ka koobeen. waxayna sababaysaa in murqaha ay adkaadaan, awood badan ay u yeeshaa in qofka energy badan uu isticmaalo. sidoo kale waxaa kaloo jiro maadooyin kale oo kor u qaadi karo, waxaana ka mid ah maadooyinka vitaminaadka kala duwan sida vitamin B9, folic acid ama iron, sidoo kale vitamin B12, sidoo kale vitamin K. dhammaan marka la isku dardaro waxyaabahaas waxay soo celiyaan awoodii shahwaadka, tira ahaan ay tay ahaan, waxayna kor u qaadaan inta laga rabayna ay gaarsiiyaan qeybaha kala duwan ee levelka ugu fiican. saaxiibayaal, anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaa dhageysiga la socodka videoga kelibiska. halkan ayaan ku joojinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.